بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan dhoofaynaa aniga iyo wafdi la socdo oo ka tirsan golaha xukuumadda magaalada caasimada ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Baydhabo halkaas oo ka dhici doona shir maalmood soconaya oo laga hadlayo shirkii amniga qaranka ay isugu imaanayaan madaxda qaranka iyo dowlad goboleedyadu shirkaas wuxuu muhiim u yahay nabadaynta iyo xasilinta Soomaaliya ajendayaal badan baa laga hadli doonaa oo ka mid yahay nidaamka cadaaladda Soomaaliya doorashada 2020 amniga iyo xasilinta dalka ajendayaalaas ayaa muhiim u yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo qarannimada dib u soo celinta qarannimada Soomaaliya insha Allah shirkaas markuu dhamaado loo bari ka bacdina waxaan rajeynayaa inaan kusoo laabto waddankeena oo nabada intaan maqanahay waxaan rajeynayaa in aan ku dadaalo nabadgelyada iyo xaqiijinta sugitaanka amniga Puntland insha Allah aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhawaada